بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواد الداوديال مركلة iyo barnaamijkeennii sheeko oo aanu ku soo qaadan doono sheekada halku dhageedu yahay afar walaalo ah iyo afar libaax Soomaalida marar badan bay xayawaanaadka aan hadlin wuu hadlay tiraahdaa si ay sheeko uga baxdo ama suugaan ha ku sameeyso ama sheeko xiriir kale ha u adeegsatay bari baa waxa la yiri waxa meel ku wada noolaa afar walaalo ah afarta walaalaha ah nin walba khibrad gooni ay cilmi gooni ayuu lahaa مثلا nin caalim buu ahaa ninna deeqsi buu ahaa ninna geesi buu ahaa ninna abwaan buu ahaa taladii reerka la isku qabtay nin walba wuxuu jeclaystay in uu noqdo ninka reerka hogaaminayo maadaama uu leeyahay xirfad gaar ah oo aanay kuwa kale lahayn caalimkii baa soo boodo wuxuu yiri niman yahow dhageysta anigu caalim baan ahay diintaan aqaan ahkaamtaan aqaan shareecada iyo xisaabta iyo zakaadka iyo sida loo bixiyaan aqaan qoyska yagaan kala saaraa ummadda kale jiiraanka aniga ayay igu nasatay oo wax alla wixii isku qabtaan sida dhaxalka oo kale ninka u kala fududeeyaan ahay qofka aan diinta aqoon waa qof mugdi ku dhex jira jaahilna wax ma maamuli karo sidaa darteed qoyskan taladiisa aniga halla ii dhiiban waan mudnahay buu yiri geesigii halka fadhiya soo booday wuxuu yiri niyahu adigu waxa tahay caalin laakiin ogow adiga iyo inta kaleba waxa aad ku dhaqan tihiin oo halkan ku degan tihiin waa aniga warankaygaas buu waran afweyn intuu la soo baxay haddii aanu waranka ahayna bari hore ayaa reerka la dardari lahaa wax alla wixii cadow idin soo maaga agtaan mariyaa midka kalena banaankaas uu iga ogaadaa oo wuxuu yiraahdaa ninkii hebel ahaa baan joogo waxba hanbaynin waranka weynaa ha laga istaago sidaa daraadeed qoyskan maamulkiisa cid iga mudan ma jirto ha la ii dhiibo deeqsigii baa ku qasloo yiri waryaare dhageysta aniga qoyskan haddii aanan aniga gacantayda ahayn bari horu rugmi lahaa oo uu baabi'i lahaa cid alla ciddii timaad waxbaan siiyaa sadaqadaas ayaana ilaahay idinku nabadgeliyey oo dadoo dhan idinka leexday oo kii idin damaacin lahaa oo inuu idin booba damci lahaa war waa qoyskii wax bixinta badnaaya hal la daayaa la oranayaa anaa reerka igu dhaqan yahay talada hal ii dhiibo abwaankii oo aamusan oo ugu dambeeyay ragga ayaa soo kacay waryaar dhageysta saddexdiinuba saddex nin oo loo baahan yahay ayaa tihiin ninna shaqada uu hayo lagama maarmo caalimow lagama maarmo deeqsiyow adna lagama maarmo geesiyow adna lagama maarmo waxa reer ku dhisan yahay waa tihiin oo saddex darajaad leedihiin anigaas ay dhageysta anigu waxaan ahay inta idinka aad tihiin oo idil abwaan baan ahay anaa geesinimo dhamaystay anaa deeqsinimo dhamaystay anaa cilmi dhamaystay martabadaas abwaan sidaas ayaan ku yeeshay talada reerka la ii daayo waa la isqabtay yeeli maayo maanu hebel iga leeyahay iyo wariya maalintii hebel reerka loo imaaday haddii aan xirka aqrin qolada markaan quraan ku aqriyo waa kuwii jabay wariya qolada habeenkii xirta eeda noo imaan jirtay haddaan qoyska siin waan rugmi lahayn wariya maalintii dagaalka nooca nin walba wax buu sheegtay waxaa la yiri ina keena degmo ina kala saartaan caadeena way aguugeen waa dhaqaaqeen waxay sii socdaan deegaankii ugu dhawaaba u tageen deegaankii markay tageen oo degmadii ay madaxa la galeen deegaankii dadku deganaa ay madax geliyeen yaa waxay arkeen dadkii deegaanka oo meel tuban magaalada afaafkeeda ah tuban oo isu yimid assalaamu calaykum iyo wacalaykum assalaam iyo maxaad sheegteen nabad baanu sheegnay waxay yiraahdeen degmoy in aadna kala saartaan baanu doonaynaa qoyska yaga maamulkiisii iyo horjooganimadiisii baanu afartayada isku qabannay afartayada walaalaan nahay nin walba meel buu ku fiican yahay ninkan waa caalin ninkanna waa deeqsi kanna waa geesi
aniguna abwaan baan ahay taladii waa la isu diido nin walba wuxuu jeclaystay aniga ha la ii dhiibo intaanu isdili lahayn yaanu nir islaamna kala bixiya ayaanu aadaynaa ina keena sidaasaanu idinku nimid waa sida noo warrama waxaa la yidhi idiin warranay inaan meeshan tubannahay oon joogno ma aragtaan haa habeen walba xilligan oo kale waxaa yimaada libaax afaran waa aarkii iyo gooshii iyo laba cagabaruur ama birinbirqooyinkii oo midna lab yahay midna dhadig yahay midna lab tahay midna dhadig yahay markay cagtana mariyeen oo dadkii iyo xoolihiiba baabi'iyeen yaanu beri dambe heshiis wada galnay waa halqabsi sheekaa lagula baxayaa waad fahmaysaa wuxuu yidhi heshiis baanu wada galnay oo waxaan idhi libaaxyow sidan kuma wada noolaan karne maxaa tala ah waxay yidhahdeen dhibka waa idinka daynaynaa habeen walba hal ruuxa naloo soo xiro marka habeen walba cid baa loo xiri jiray idinkoo afara haddii ilaahay maanta idin keeni deegaankiinna aad marti u tihiin waannu idinkala saari doonnaaye libaaxa nin u soo xira allah waa la naxay waa la isfiirfiiriyey iyada oo hadalkii lahaayo oon weli wax jawaaba laga bixin halkan unbaa waxaa ka yeertay hurr alla waa iyagii waa afartii liqaa waa afartii dhiigga dadka u baratay waa afartii loo soo xiri jiray habeen walba ruux degmadii maxay samaysay waayo arag bay ku aheeda meeshii cagahay wax ka dayeen waa carreen afartii walaalaha ahaa iyo libaaxyadii baa isku haray haye abwaankii baa wuxuu yidhi waryaa geesi warankii afkooyna waad wadataaye bahalka naga dhici buu yidhi markaasuu ni bahalkan waa badan yihiin waa amagleey wuxuu ku jeestay caalimkii wuxuu yidhi caalim wax inagaga akhri buu yidhi waad u jeedaa waana la hayaa bahladan afka soo kala hayo ruuxii loo xiri lahaa bay naga rabaan waa tan oraahda ay ku baxday alamtara xaaladaadu alamtara way soo dhaaftay markaad maqashaan meesha ay ku baxday weeyaa la yidhaah wuxuu yidhi libaaxu alamtaruu leeyahay alamtaradina waa soo dhaafay buu yidhi meel aan kaga akhriyay ma joogo macnaha ka sokeeya deeqsigii buu fiiriyey yidhi hay deeqsi aday ku dayatay ragga kale waad maqashaa markaasuu yidhi qudheeda anaa oo mata waxay ugu dambaysay yidhi meesha aanu ka soo kacnay anaa baahan buu yidhi maxaan libaax iyo hawshiisa gali karaa waayaha aniga igu dhaafay dhegaystu yidhi libaaxyadii buu ku jeestay libaaxyow annagu marti baan nahay deegaankan aad wax ka farsamaysan jirteenna habeen walba ruux baa laydiin soo xiri jiray ama dhadig ha ahaado ama lab ha ahaado ruuxa laydiin soo xirana waxaanu ogaanay oo naloo sheegay in aanu wax jahorad ah iyo nasiib kale aanu wadan annaga caawa afartayada nin ka mida wuxuu wataa oo calooshiisa ku jira wax la yidhaahdo jahorad allah jahoradna waa taqaanaanoo ruuxa cuna weligii cimri dheer baa ilaahay siiya cimrigiisaa dheeraada jahoradda ninka jahoradda haysta ayaanu caawa idinku casuumaynaa oonu halkaa idiin soo dhigaynaa ee afartiinan ciddii idiin cuni lahayd iska soo saarow yidhi allah aarkii goosha baa soo tallaabsatay hunjuqdhe waa aniga tiriyaa kaloo cunaya jahorad weligii inaan noolaadaan rabaa aarkii baa indho kulul intuu ku fiiriyo bahal dharbaaxa ah oo ilaahay inuga shartiray oo indhaheeda nusnus iyo kumikumi hor yaacay oo aanay filayn meel looga yimid oo cirkii dhulkii iyuu yidhi hoo qabso dhulka markay ku soo dhacaysana way ku boodday iyadoo caraysan ilkaha iyo ciddiyaha la isku boobay xaggaasaa la isla intay iyaga is cunayeen iyo kii lab maxaan ku rahdaa birinbarqada ama cagabaruurka ahaa wuxuu arkay gooshii yareed oo nimankii ku dhaqaaqdo tiri aawe ninka natusa leh yuu arkay durbe intuu ku booday uu qabtay yuu madaxa jibiyey waa la is cunay intay isku maqnaayeen baa abwaanka yidhi haye maxaad sugaysaan nin walba waxalla waxaa haystay la dhac inta ay colaaddu ka dhexaysay iyaga islaynayaan aanu ka faa'iidaysanno halkii baa afartii libaax ee deegaanka dhibay lagu dilay farsamadana waxaa keenay ninkii abwaanka ahaa
saacado kadib markay deegaanka is yiraahdeen waa nimankii bahalladii waa casheeyeen ee bal raggii martida ahaa halla soore u taga yaa afartoodii oo meesha fadhiya iyo afartii libaaxoo bakti oo la dilay yay meesha ugu yimaadeen warnimayahu noo warram maxaad samayseen baa leeyahay barnaamijkii wixii aanu isku hayno ina kala saara aanu idin niri yaanu libaaxyada u bandhignay oo yaa u bandhigay ninkii abwaanka ahaaba u bandhigay caalimkii wuxuu ku yidhi maxaa naga dhici bahalkan caalimna wuxuu yidhi anu ma dhicin heerka markay gaarto alamtar uu soo dhaafay geesiga waa cabsaday deeqsiga waa cabsaday fikraddan waxaa keenay ninkii ahaa abwaanka oo iyagiibu madaxa isu geliyo wuxuu yidhi nin waxaanu idiin soo dhigaynaa idiin soo xeelaynaa johrad calooshiisa ku jirtay idiin cunay in nin walba mid walbana wuxuu damcay libaaxyadii inuu yidhaahdo aniga ruux kala taaban maayo halkii bay iyaga iscuneen intii ay iscunayeen baanu ka faa'iidaysanay meeshii baanu ku leyn marka sheekada waxaan kala baxeynaa waa mid hor dadka markay isdirraan ayaa laga faa'iidaystaa waa hadda dhibka waddankeenna haysta midda kale soomaalida oo dhan dadkii waxay isaga bateen ruuxii laba kelmad tiriyaba inuu yidhaahdo abwaan baan ahay ragga ugu gabayada iyo murtida badan buu ka mid ahaa ninkii alla u naxariisagii dhoodaan cabdullaahi dhoodaan haddana wuu diidi jiray abwaan in la yidhaahdo war anu qaryaan baan dhihi jiray qaryaanku waa gabyaaga dadka wax tiriya wey anu qaryaan baan ahay abwaan ma ihi buu odhan jiray maantana kii laba xaba tiriya haddaan abwaan la odhan madaxa xanuunaya marka abwaan waa nin isku darsaday cilmigii iyo caqligii iyo deeqdii iyo wax walba yani wanaag ahaa isku darsaday kama reebana murtidan uu tirinayo taana kusii darsada abwaan la odhan karaa qoomkii isdirarana qoom kalaa ka faa'iidaysto oo waxa waddankeenna hayste nabad allah inoo keena sheekadayadii 15 eenu ku soo qaadanay 4tii libaax iyo 4tii walaalaha ahaa intaa ayaanu ku soo gabagabaynaynaa inta aanu mar kale ku kulmayna mid tan oo kale ah waxaan idinku dhaafaynaa dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu